السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليق ميل كستا joogtiin kusoo dhawaada channelkeeni xarunta cuntada caafimaadka walaashin shukri aadan buule asxaabta qiimaha badan ee dhinaca nala socota soo dhawaada indhahaya waxaan rajaynayaa caafimaad barwaaqo meel kasta adduunka joogtiin inta usii guudagelin topigeena waxaan iga codsanayaa inaad subscribe samaysiin like garaysiin share garaysiin wixii fikradda dhinaciina hoos nagula wadaagtiin maanta waxaan hayaa topic aad u muhiim ah waxyaalo badan laga soo weydiiyay topigeena maanta waxaa weeye asxaabta qaaliga waxyaalaha fududeeya asmaamayaasha fududeeyo dadka isqabaan markay rabaan uurse ku helaan iyo waxyaalaha xakimaha ka hor imaada iska ilaalinayaan waxyaalaha ugu horeeyo ee fududeeyo waxaa kamid ah inay labadaas qof ee lamaanaha isla joogaan labada sano ee ugu horeyso oo ogahay dadka hadii hal meel isla seexdaan ee dad isqabaan yihiin ama lamaanayaal ilaahay wuu siin karaa laakiin dhaqaatiirta waxay kula talisaa inay labada sano ugu horeyso u meel kala aadin ee isku meel joogaan markay siiba raadinayaan caruur markii la dhaxay waaye talabaad waxa weeye asxaabta qaaliga inay maalin kasta labadaas qof isqaban ee guusha isku arki karaan maalimaa jirto odd numbers odd numbers waxa laga horaa maalmaha 9 markay tahay 7 8 markay tahay 7 iyo 3 iyo 1 odd numbers labadaas qof isla seexdaan maalin kasta at least maalin kasta isla seexdaan ay labada qof isqabaan waxyaalaha kale ee fududeeyo markay rabaan caruur inay helaan oo uurka fududeeyo waxa la dhahay waa inay tagaan dhakhtarka ee isoo baaraan hadduu infection jiro markaas isku guursadaan ee waxba la sugin waqti la sugin lamayaal badan waxa arkaysaa infection aqoonin xitaa ama wax waqti ka badan isla joogay oo soo fiirin viruska lagama wada in ilmaha iska soo fiiriyaan waxaan ka wadaa markaas isku guursadaan waxyaalaha ugu horeey ee ku dhaqaaqaan waxa weeye inay isbitaalka aadaan ee infection iska soo daaweeyaan ee daawooyinkooda qaataan markaas infectionka wuxuu ka mid yahay caqabadaha ka hor imaado uurka ayuu ka mid yahay caruurta waxaan kaloo kula talin lahaa dadka inta xitaa isguursanin inay isbitaalka isla aadaan ee waxyaalo badan iska soo baaraan sida AIDS-ka sida jabtada xanuuno badan DS la dhahaa jiro oo halis ku ah dadka hadhow dadka markay isguursadaanna waa iska waxay la talo iyagoo isku calool fiyoolsi isku la galaan meel ka bacdin hadhowna infectionkooda iska sii daaweeyaan asbaamaha kale asxaabta qaaliga ee fududeyso waxa weeye inay waxa la dhahay dadkaas dad ahaan dad ay yihiin dad caafimaad leh oo fit waxa laga wadaa inay zaid buurneen inay zaid caateysneen ay yihiin qiyaastii lagu talagalay BMI-ga kor ka soo hadli jiray 25 iyo 18 u dhaxayaan hatta qof zaid u buuran tahayna ukuntaada dumar tahay ma soo bixi karto hadhow caaqibada kugu noqonaysa haddana istahayna biyaha hoose u dhacsan yihiin runta inay sheegaya waxyaalaha kale ee fududay waxay ka tahay inay dadkaas cunaan cunto wanaagsan oo caafimaad leh oo diet ah oo dheelitiran hadda cuntooyinkeena aniga cuni jirnay Soomaaliyahan aan aroor raadinayno taas caaqibad weyn ayay kugu tahay mis ogid actually cuntada wax weyn door weyn ayay ka imaad ee ka ciyaartaa kulay Soomaali ma fahansana laakiin waa meelaha ugu waaweyn ee ka ciyaara ilmaha marka raadinaysin waxay nagu la talin lahaa cuntadiina inaad saxdiin cuntiin cunto diet dheelitiran oo fiican oo wanaagsan oo inaga caawinayso dhinaca caruurta waxaan kula talin lahaa oo kale lamaanayaasha caruurta raadinayo inay qaataan multivitaminyaashooda vitaminyaasha aad ay muhiim u yihiin video dhan ayaan kala soo hadlay maraba halkan inaan hadana ku soo celiyo vitaminyaal aad u qaas ayaa jiro oo ka caawinayo dhinaca marka wadaa xubin qabin oo hormoonskaaga saxsan yahay oo waxba labadiina ma sha Allah tabaaraka la tiidin waxyaalaha la soo siiyay maxaa waaye vitamin gabadha ukunteeda ayay kobcinaysaa ninkana biyihiisa ayay kor u qaadaysaa soo vitaminyaasha aad muhiim u tahay oo inii sheegaya exercise-kina ha ilaawin in dhila exercise-kina sameeya ha noqonin dad guriga fadhiyo bes exercise fadhiya hadda exercise sameynina waa ogahay Soomaaliya ilaahay wuu ku siin karaa laakiin waa waxyaalaha fududeeya asmaamayaasha fadhina caafimaadka ay ka mid tahay inaa exercise sameysid aan noqotid qof shape-kiisa qurux badan oo meesha lagu talagalay aad joogtid haddii kale caaqibada kugu noqonaysa la socda waxyaalaha kale ee fududeeya asxaabta qaaliga waxa weeye inay dadka isqabaan markay isqabaan dad ay yihiin is support gareyn kara oo waxyaalo badan caaqibadooyin badan ayaa ka hor imaanaya lamaanayaasha hadda waqti qaatan dadka ayaa ku bilaaway qeylo iyo buuq iyo guu ku bilaawayo inay noqdaan laba qof oo waxaas intay iska daayaan labadooda wax dantooda ah ay ogaadaan waxaan kula talinayaa hooyada ilmaha raadinaysa iyo aabahaba inay iska ilaaliyaan stresska wuxuu ka yahay door weyn ayuu ka ciyaaraa gabadha inay qaadin uurka marka stress isku furto waan fahmayaa because dadkan ayaa dad fiican yihiin dadka community dadku xeeran eedada abtiga adeerka hooyada dad badan oo nagu xeerasan ayaa markay labada qof isguursadaan bilaawaa isla habeenkii isguursadaan subaxdeedii ku dhahayaan gabadha wax ma ku qaaday
goorma wax qaadaa habeenkii ku qaadi karta laakiin aniga waxaan arkaa that's private life labadaas qof ayay ka dhaxaysaa haddii caruur rabaan haddii caruur rabin dadkan kale ehelka ah waxaan dhihi lahaa maxaa la dhahaa halkaas booskaas iniga ma lahidin inaad ka hadashin waa ogahay hooyada inay noqoto ay yar noqotaa adeerka in abti dadka waa ogahay laakiin that's waxaan dhihi lahaa businesskiina ma businesskiina waxaan ka wadaa ma aha shaqadiina qof kasta gurigiisu leeyahay ama reerkiisu leeyahay ha ku ekaado dadkan buuqa lagu furaayo gabadhana waxay noqonaysaa caaqibad weyn hormoneskeeda ayaa isku dhex qasmaayo hadeerta caadadeeda ayaa kala yaacayso waxyaalo badan ayaa ku furmana hormonka wuxuuna ka mid yahay stresska waxyaalaha ugu waaweyn caaqibadaha ugu waaweyn ee gabadha ku dhaca markay heli weyso ilmo ka hor imaada ayay tahay hadee markay buuq lagu furo waxaan dhihi lahaa waxba ha u bixina labadiina isla aada vacation banaanka u baxa is support gareeya labadiina maalin at the end of the day labadiina ayaa dadka isguursaday oo guriga isla jooga oo isla wadaagayo dadkan waxaan ay nagu furayaan waxba ka soo qaadina marka indhaha is support gareeya waxaan ka wadaa garab isku noqoda labadiina isqabaan labadiina is soo guursateen inaga isku lamaana inaga isku dhar ah inaga isla seexateen inaga isla cuntaysiin dadkan wax inaga qosay mara wixii ilaahay nagu talagalay waa helaysin laakiin waa inaad doorarkan waxaan sheegaynaa ka soo baxdin noloshin ku dartin because inay fududeynaysaa waxyaabo badan ay inay fududeynaysaa waa inay ogaan karto markii gabadha ovulation ka sameynayso ovulation waxa la dhahaa waa markii caadada ku dhici rabto oo kunta banaanka u soo baxdaa waxay ilaalisaa inay biyaha qabato wiilka iyo markii dhameyso dhiiga iyadana waa waqtiyaasha ee uurka la qaado waayo ogow gabaray dhihi lahaa saakolkaaga baro markaas oo kale waxaa kaloo inay dhihi lahaa asxaabta qaaliga maandooriyada haliska ilaali maandooriyada waxay ka tahay caaqibinta ka hor imaado inuu qofkaas uur qaadin waxyaalaha kale aan dhihi lahaa haliska ilaaliyo wiilasha waxaa la dhahay kastumooyinka mise boqsayaasha ma iska siibaan way ku laalaabtaan halkaasna infection ayuu ka helayaa mis oga isaga waxyaalaha kale u xun nimanka waxaa la dhahay skinny jeanska xirtaan skinny jeanska actually show waxaa keenay research weyn ayaa hadda keenay nimanka xirta waxaa la dhahay biyahooda inta badan hoos ayay u dhacaan la dhahay hadda caruur raadinaysid wiilasha waxaan kula tarin lahaa aabayaasha rabaan ilmaha iyagana inay iska ilaaliyaan biyaha kulul ee zaidka inuu taabka uu ku dhex fadhiisto ama uu ku qubeysto isagana waxaa la dhahay biyaha biyihiisa shahwadiisa ayay hoos u ridaysaa iyo qualitygiisa ayay hoos u ridaysaa waxyaalaha kale aan ku dhihi lahaa asxaabta qaaliga markaa ilmo raadinaysin iska ilaaliya inaa xoog hilibkaaga dhaco waxaan ku dhahay waa inaa size lagugu talagalay ahaadid ama inuu xoog hilib kuu fuulo caaqibada ayay ka tahay haddii xoog labadaas ku sarfado mid kuu fiicnaa waxyaalaha kale ila iska ilaalinaysin waxaa waaye over exercising doing ina too much exercise quality exercise ka badan hormoneska ayuu qalqaliyaa wax kasta waa ina balance iyo limitation lahaano balance waxaa laga wadaa wax kasta meeshii moderate in ahaano dad anagoo dhan moderate ana even diiniyan ilaahay wuxuu noogu talagalay in ahaano dhexdhexaad wax kasta ahaadid maadaama caruur raadinaysid hadda exercise too much sameysid hormoneskaaga ayaa waxyaalo badan ku imaanaya qalqal ayaa galista haddii oo hilib zaid ku fuulana waan ka soo hadlay hadduu hilib zaid kaaga dhacana waxay noqonaysaa caaqibada aad u weyn waxyaalaha kale aad ka soo ilaalinaysid waxaa weeye inaad tagtid dentist ilkaha hadda waxay ka tahay door waxaa la dhahay haddii ilkahaaga ama ciridka uu kaa bukaa la dhahay infectionka bacteria ku dhalataa la dhahay hadda waxay kugu ridaysaa hilibka inuu kaa dhaco inaad noqotid qof zaid u cateysan way ku cunaysaa halkaasna hilibka hadduu zaid kaaga dhaco waxaan dhahay isagana caaqibad kale ay kuu tahay ilkahaagan waxaa ku ilaa caafimaad guud ko dhan laga hadlaya inuu qofkan uu ahaado healthy markuu caluur raadinayo qof caafimaadkiisa uu buuxo u yahay waxyaalaha kale oo asxaabta qaaliga inagula dardaarmayo waxaa weeye marka ilmo raadinaysan inaa ilaahay ka baqano aan dad ilaahay ku xiran ahaano waa ogahay ilaahay ku siin karaa aad anagoo dhan caasiyaa la nahay waan sameynaa dambi laakiin inaan noqono dad ilaahay ka baqado oo caabidiin ah oo salaadooda ku xiran oo tasbiixsada oo taajid soo kaca oo ilaahay dulmiga isku hayno dadka isqaba iska ilaalino waxyaalahaasna waa diiniyan oo ogtiidin miinii sheegay dad muslimiin ayaa nahay waxyaalo badan ayay nagala caawinaysaa soo marka asxaabta qaaliga ah waxyaalahaas dhan waa intaan on point kusoo sheego dhan waa pointyasha waxay ka caawinaysaa caaqibadahana waa baranaysaa iska ilaalinaysaa waxyaalaha ku fiican waa ogaanaysaa cuntooyinka sida loo cuno fiican exercise ina fit ahaatid ina multivitamin kaaga cuntid ina relaxing ahaatid calm down isdajiya dadka ilmaha raadinayo Soomaalidan buuqa xin ku fanayaan xagga ku tuura ina stresska iska ilaalisiin ina isku kalsoonaatiin ina ilaahay isbitaalka aadin oo infection iska soo dhameysiin waxyaalahan adoo og laakiin waa laga rabaa hadana ina dadaal la imaado in wiilasha skin jeaniska isku dhajiyaan iska ilaaliyaan iyo boxingka
oo boqsaga ma la miskastumada oo wasaqda ban iyagan iska bixiyaan infection ayuu keenaysaa because waxaa la asxaabta qaaliga research la sameeyay nimanka isku dhajiya sulwaalada iyo nimanka sulwaalada ka foqsan ayaa ka biyo badan oo quality kooda ka fiican yahay dan xalka kale negative ayuu keenaysaa pressure ayay ku ridaysaa biyaha ayaa hoos uga dhacaya lahay la socda waa wax caafimaad oo layniga hubay waxaan iska dhahay ma aha run ahaantii so pointyasho dhan haddaa samaysid ana ilaahayga isku xirtid la yimaadid dadaalkaaga waxaan hubaa ilaahay inuu kula garab garayo una ilaahay ku dayaceenin soo marka asxaabta qaaliga ah waa waano iyo talooyin aad u fiican waaye dhagaha si fiican ha loo furo wiilasha koodana way soo wadaa vitaminyaasha u fiican igana biyaha kor u qaada part 3 ayaan ka dhigaynaa kan part 2 ayaan ka dhigay kii hore aan kasoo hadalnay la sheegaraya dadka dad badan ayaa soo bataya mahan lamaanayaasha oo ilmo waqti badan isqabeen oo u baahan waxyaalahan ka dhigay wax yar oo fudud wax yar fudud ma aha adax ka faa'iideen sheegareeya soo janalka nagu kalo dadkan wax uga faa'iidaan subscribe sameeya waxa fikradiina hoos noogu reeba meel kasta adduunka joogtiin waxaan inii rajeenayaa inuu ilaahay wax khayr qabo ina siiyo meel kasta adduunka joogtiin oo ilaahay ba ilmo fiican oo caafimaad leh ilaahay inuu nagu israaqo waxaan idin ilaa sabarka badiya ilaahay isku xira waxyaalahan la imaada insha Allah ilaahay wina la garab galay waana guuleysanaysiin dadka buuqooda waxaasna meel iska dhiga iska tuurayn laha insha Allah dad muslimiin ayaan nahay niyada khayr aan sheegno halkaas ayaan ku sii guudo baxaya wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh meel kasta adduunka joogtiin